بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaanu joognaa qaahira waxaanu isugu nimay inaynu ka wada hadalno wixii khabar oo xaggayga ka imaanayaan inaan idin soo gudbiyo wixii idinku aad weydiinaysaanna inaanu iska wareysano waad ka warqabtaan kala hore sanadka kan bishii May waxaan ku dhawaaqay inaan ka mid noqon doono sharaxiinta uu istaagi doona madaxnimada Soomaaliya marka waxaan jeclaan lahaa waxa weeye inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego inuu ka faa'iideysanaya fursadan caawa inaan sanad hore saan ugu dhawaaqay inaan weli u taagnahay arrintii iyada ahayd sababtu waxa weeye muddo sanada saad ka warqabtaan dowladda muddo loogu daray muddadaasna waxay in fursad la siiyo ay howlihii loo markaa igmaday oo road mapka lagu xusay inay wax ka qabtaan marka sabab igu kalifaysay markaa ma jirin campaign ku garab furo laakiin maadaama uu waqtigu soo dhawaaday munaasib weeye in maantay inaan ka hadalno barnaamijka campaignka iyaga uu noqonayo muddada tan marka kala guurka oo hadda 4 bilood ama 3 bilood oo harsan inaynu markaa muxuu ahayd ummadda u soo gudbino barnaamijka aan isleenahay Soomaaliya waxba looga qaban karaa waad ka warqabtaan bishii February shirka lagu qabtay London adduunka oo dhan wuxuu isugu yimid in Soomaaliya laga arinsado mustaqbalkeeda marka waxa la go'aansaday dawladda hadda madaxda uu ka yahay walaalkeen Sheekh Shariif inay kaga eg tahay bisha August ee sanadka marka ummaddu marka waxay isu diyaar garoobaysaa waxa weeye in la helo hoggaan cusub in la helo in election uu dhaco in marxaladda maanta lagu jiro ee burburka ah sida looga bixi lahaa in laga arsado fursaddan waxaan uga faa'iideysanayaa waxa weeye awalan burburka Soomaaliya ma bilaaban 20 sano ka hor burburka Soomaaliya wuxuu bilowday 1950kii markii Soomaalidu ay aqbashay in trusteeship la geliyo saad ka warqabtaan 1945kii waxa la dhisay wuxuu ahaa waxa maanta lagu magacaabo United Nations ayaa la sameeyay Soomaaliya marka waxay noqotay golaha wasaayada ama trusteeshipka dawladaha marka la rabo in loo diyaar gareeyo dawladnimo iyo inay hantaan maamul iyagu ay leeyihiin Soomaaliya waxay noqotay dawladda kaliya iyo shacabka kaliya oo laga dhaadhiciyo in wasaay la geliyo ma dhicin taariikhda marka laga soo qabto 1945kii iyo maanta la joogo 2012 dal kale oo aqbalay in wasaay la geliyo taariikhda ma soo marin
waxaan ku celinayaa oo rabaa shacbiga Soomaalida inaan dib u xusuusiyo intii hore u ogeyd oo ka warqabtay oo noolayd inaan xusuusiyo intii dhalatay waayihii dambe oo hadda madaxda dalka haysa xoogoodu waxa weeye waxay ku jiraan kooxda aan waaga dhalan bay ku jiraan oo taariikh ahaan wax looga sheegay inaan iyaga u sheego iyo shacbiga guud ahaanba Soomaaliya godka imaanta ku jirto waxay gashay 1950kii ilaa 1960kii dabankii loo sameeyay oo ay ku dhacday ayay ilaa maanta ku jirtaa waxay ahayd shacbiga oo laga dhaadhiciyay aqbara in wasaa'il idin galiyo nasiib darro anoo xurmad badan u haya raggii u soo halgamay xurriyadda xisbiga leegada oo maanta wada dhintay allah u naxariisto rag waxay ahaayeen daacada bay ahaayeen laakiin haddaan isiraaho taariikhda khata'a ama gafka ay galeen iyagoo aan ujeedo cad aan ka lahayn wuxuu ahaa markay aqbaleen in la gasho wasaa'il la galiyo 61kii markii xorriyadda aanu qaadanay 10 sano waxa laga faa'iideystay isticmaalka ka faa'iideystay wuxuu ahaa midnimadii dareenkii qarannimo aanu rabnay inaanu qaran ku gaaro annagoo halgamayna in laga diro dareenka isaga ah waad ka warqabtaan in qabyaaladii geed lagu xiray waaga dadku inay midnimo heleen waxa lagu midaysnaa wuxuu ahaa sida xorriyad loo gaarayo 10 sano waxa laga faa'iideystay in midnimadii la baabi'iyo dareenkii walaalnimo oo Soomaalidu ay markaa lahayd in meesha uu ka baxo in qabyaaladii dib loo soo celiyo in canaasirtii markaa u adeegayay ma garatay isticmaalka in la soo hormariyo oo hoggaanka loo dhiibo raggii dagaalka ku hayay oo midnimada Soomaaliya dhiig badan u daadiyay oo naftooda iyo maalkooda iyo waqtigooda u huray in xeedaanka siyaasadda laga saaro oo gadaal la mariyo ayaa isticmaalka markaa ka faa'iideystay 60kii waxaanu qaadanay markaa xorriyad aanu u qaybsannahay markaa qabaa'il habeenka xorriyadda la qaadanayo sanadkii ka horreeyey ninkii taariikhda la socdaa waa ogyahay khilaafka leegada dhexdeeda heerka u gaaray in qabiil loo kala safto annagaa mudan inaan madaxa noqono iyo annagaa mudan wax laga soo shaqeeyey buu ah wax yaab leh ummadda Soomaaliyeed aad moodo intii ogeedna inay ilowday intaan markaa jooginna aysan jaahilba ka yihiin in 61kii la yidhi dastuurkii la soo sameeyey markaa isla isticmaalku soo sameeyey iyagoo adeegsanaya Soomaali in la yidhaaho waa in la meel mariyo anigu waxaan xustaa 61kii dastuurkii markii la soo hagaajiyey waxaa la yidhi waxaa la keenay 2 sanduuq sanduuqi madooba iyo mid rijal la soo mariyo la cadeeyay waxa ummadda laga dhaadhiciyay dastuurka cad sanduuqa cad haddaad ku rido macnaheedu waxa weeye waxaad ictiraaftay xorriyaddii waxaan ahay nin doonaya xorriyadda doonaya baa laga dhigay haddaad sanduuqa madow ku ridana wuxuu noqday nin isticmaal dib loogu celinayaa tahay
oo tirsi baad 10 sano dambe ayaa dib loogu soo celinaya ayaa laga dhaadhicay suuqa la galiyay maanta marka waxaa socota haddaanan dastuurka hadda la soo diyaariyey siduu u yahay aanan u qaadan waxaad galaysaan isticmaar dambaad galaysaan meel waliba waa la mariyay soomaaliya tirsi baa lagu celinayaa soomaaliya waa la kala qaybsanayaa soomaaliya kala guurka kan hadda ay ku jirto iyo kumeel gaarka lagama bixi karo aan nimankii ugu sarreeyay oo madaxda ahaa madaxweyne iyo prime minister ba habeen iyo maalin ku hadaaqaya oo ummadii ka dhaadhicinaya haddaan la qaadan isticmaar baan dib ugu noqonayna ana waa 51 sano ka hor sheekadii socotay ayaa maanta dibna loogu soo celiyay anigu marka maahay kuwa hadda ku andacoonayo leh wuxuu dhanba hal xooro dastuur ma rabno marka hadda waxaan ku jiraa marxalad adag oo ah laba group xaq jiraan u dhaxaynaa xaq jir oranaya haddaanan qaadan dastuurka siduu u yahay aanan u qaadan isticmaar dambaan dib ugu noqonaynaa qarannimadeennii baa baaba'aysa jiritaankaygii baa burburaya ayaa group ka andacoonaya waa group hadda madaxda awga iyo wixii gadaal ka soo riixaya iyo kuwa leh qori iyo qiiqiisa waa la isku xooraya aynu wuxuu dhanba hala diido oo hala xooro kuwa leh marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye extreme kan leh jiritaanka iyagu wuxuu ku jiraa annagoo muxuu ahay siduu u yahay aan u qaadano oo aan la taataaban oo siduu yahay loo luqo waxaan leeyahay groupka isaga ah ilaahay ka baqa su-aashaan weydiinaya waxa weeye ma jiraan dawlado calankooda maanta leh oo la yaqaan oo muctarif ah oo aan dastuur barahaynba dastuurka hadda la isku haysto le jiritaankiinu ku xiran yahay kuwa aan haba yaraatee lahayn baaba jiraba laakiin calankooda leh la ictiraafsan yahay la yaqaan shariif iyo cabdiwali waxaan weydiinayaa dawladda hadda ugu dambaysay oo muxuu ahaa shirka noo qabato dawladda ingiriiska ah oo dawladaha adduunka ugu qadiimsan ah ka mid ah oo ma garatay magaceeda iyo aanu naqaanayo isticmaalkeeda ka mid ahaydba dawladihii na soo isticmaalsada annaga su-aashaan weydiinaya waxa weeye dastuurka hadda naloo sameynayo kale ma leeyihiin wax dastuur la yidhaha ma leedahay dalka ingiriisku wey su-aal waa su-aashaas waxaan rabaa inaan iyaga gaar ahaanaan u weydiiya waa labada ninoo odayaasha waxaan u wajahayaa waxa weeye sheekh shariif oo madaxweyne ah iyo prime minister cabdiweli iyaga aada uga hadla maalmahan dastuurka iyaga aada uga hadla waxaan su-aal weydiinayo kale waxa weeye dawladda jarmalka oo ah dawlad iyaduna aada u weyn oo ah dawladda afaraad xagga dhaqaalaha adduunka ah waanu naqaano ma garatay awoodda ay ku leedahay adduunka iyo siyaasadda ay leedahay dawladdu jarmalku ma leedahay dastuur ma leedahay dawladda israa'iil aanu naqaano awoodda adduunka ku leedahay iyo taxaalufka ay leedahay aanu naqaan dawladda israa'iil dastuurka maanta annagu hadda naloo wadoo kale ma leedahay su-aalsi aan weydiinayo iyaga dawladda sacuudiga oo labada xarameyn uu ku yaal oo adduunka ugu dhaqaalo badan middle east ugu dhaqaalaha badan oo boqortooyada ah dastuur ma leedahay marka dawladahaasu ma ku meel gaarba waa su-aal iyagaan weydiinayo ma jiritaanka ummadooda waxay ku xiran tahay dastuurkaas oo ay qaataan oo saxeexaan may ku xiran yihin haddii marka ay yidhaahaan maya mare hadday yidhaahaan ha ka toobad keenaan cudurdaar ha ka bixiyaan hadalladii ka soo dhacay maalmahan waxay ku sheegayaan ummadda soomaaliyeed way leeyihin wax ma akhriyaan wax ma yaqaanaan jiritaanka iyaga wuxuu ku jiraa magara dastuur annagu qaadana anigu marka waxaan qabaa waxa weeye labada extreme ha la joojiyo wala odhanaysa jiritaanka iyaga iyo mustaqbalka iyaga iyo inaanu ka baxano ku meel gaar wax la yidhaaho wuxuu ku xiray annagoo dastuurka siduu naloogu soo qoray oo nalagu laqimay annagoo u qaadana ha ka noqdaan groupka ha ka noqdaan waa extreme extremekan kaloo odhanaya ma garata isagoo dhanba uma baahnin oo ha la xooro iyaduna waxaan leeyahay iyaguna war wixii